عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو أي السلام يا عاو حنيدين هيا شامبو أو شرط لو دقنايو مركزا ujeedaan alaabta hadda aan ka sameynaya in tusaan wixii jijaan gadaasha ka arkaysaan insha Allah marka hadda dabka waxa ii saaran bariis yar cad qajaarka hadda waan jarjaranayaa maxay tahay asagoo diirkiisa qaba ayaa waxaan ku fiiqayaa baasha oo kaaroodka lagu hoolo waan hoolayaa marka asxaabay si fiican ii la socda insha Allah caawa waxaan idin soo deynayaa video aad ku farxi doontaan insha Allah hadda waxaan sameysanayaa qajaarkaan sameysanayaa diyaarsanayaa insha Allah biskina dab ii saaran yahay marka asxaabay maxay tahay wixii oo talo iyo tusaalaha gadaal baad ka arkaysaan insha Allah maxay tahay wuuna idin qancin doonaa insha Allah maxay tahay aniga xataa waan ka soo baarandegay marka insha Allah asxaabay hadda waxaan diyaarsanayaa waxa ii saaran dabka qajaarka ii karkarayo dabkaan xataa waan karkarinayaa qajaarka bariisku ii bislaaday waan dhigtay hadda qajaarka dabka ii saaran qajaarku markuu ii bislaado insha Allah natiijada waa arkaysaan marka asxaabay isku wanaada dhihi rabaa hadda waxaan hagaajisanayaa saabuun waxaa lagu daraa saabuun dhoof la dhaho waaye waxaan hadda aad u jeedaan oo saxanka ku jira waxaan ku hoolay kan oo kaaroodka lagu hoolo maxay tahay marka asxaabay waxaan idin sheegayaa qudaarta dabiiciga inay fiican tahay oo jirka u fiican tahay ninka kale markaad tijaabisaan maxay tahay wixii talo iyo tusaale idinka unbaa igu soo qoraysaan commentiga insha Allah marka asxaabay ma hawl yara laakiin qofkii dadaala 5 daqiiqo waaye wax yar 10 daqiiqo camal ku qaadanayaa marka hadda alaabtan isku dardarsanay waan shiidi rabaa insha Allah maxay tahay wixii natiijo ka soo baxana waa arki doontaan insha Allah marka asxaabay anigu waxaan had iyo jeer u heelanahay inaan ka farxiyo waxyaabo oo maxay tahay muhiim ah aan idin soo daayo marka insha Allah idinkana waxaan ku codsanaa inaad si fiican ii fiirsataan oo maxay tahay waa kana hadda alaabtan isku dardarsanaa way kulushahay waan yara qaboojinaa laakiin waa isku dardaraa insha Allah bariiskii iyo qajaarka waxaan guraya waxa u jeedaan waa qajaarkii oo aan karkariyo si fiican u kariyo soft ka dhigay bariiska xataa soft aan ka dhigay bariis cad waaye waxba lagu darin biyo bas lagu kariyay qajaarkana biyo bas ku kariyay maxay tahay marka asxaabay wixii natiijo waad arki doontaan insha Allah maxay tahay markaas inaad waxaad ku farxaan idin soo galiyaan jecelahay idinkana wixii rayigiina waad ii soo gudbin kartaan marka idinka la meeshan idin jooga insha Allah marka waa kan alaabta aad diyaarsana insha Allah kan ugu yaraaday waan ka bedeli doonaa insha Allah marka asxaabay maxay tahay waxaan rabay inaan baradho ku daro laakiin baradho waan ka daayay marka asxaabay maxay tahay baradho xataa lagu darsan karaa laakiin baradho anaa ka daayay igu batay marka maxay tahay asxaabay u jeedaan hadda waxaan diyaarsanayaa saabuunta soo qabsanaa saabuunta saad u jeedaan waa saabuun dhoof meel kasta waa laga helaa wadan kasta waa laga helaa saabuun dhoofta meel kasta aad joogto heli kartaa xoogaa yar anigu tabiya baan ku isticmaalay waxyaabo kala aan ku isticmaalo carwajiga aan soo deyn rabo insha Allah taxana idinka dhigi rabaa alaabta timaha waa idin soo deyn rabaa insha Allah kuwa kale oo iyaguna noocyo kale ka samaysan idin soo deyn rabaa insha Allah marka hadda waxa waaye saabuuntii aan ku hoolaya birta kaaroodka marka maxay tahay qaybta hore way igu yaraatay oo in yar baan ku darsan rabaa insha Allah marka maxay tahay u jeedaan inaan qayb labaad sameynayo marka asxaabay maxay tahay waxaan filayaa inaad maxay tahay ka heli doontaan insha Allah anigu saan uga helay anigu aad aan uga helay ilmahayga oo ugu wada mari oo ugu wada dhaqay way ka heleen saan anigu uga helay inaad idinkuna uga heli doontaan insha Allah ayaan aad u rajaynayaa marka maxay tahay asxaabay waan maxay tahay wax kasta oo igu soo kordho fikrad ah wixii talo iyo tusaale ah way soo kordhinaa insha Allah idinkana waxaan ka codsanaa waa kan hadda saabuunta intii qaybta labaad baan ku darsanayaa waa saabuun dhoof saa u jeedaan maxay tahay waxaan isku shiidi rabaa hadda marka saabuunta iyo waxaan isku shiidi rabaa qajaarka iyo waxaan isku shiidi rabaa maxay tahay bariiskii marka insha Allah asxaabay daawasho wacan waa ila socon kartaan marka maxay tahay maanta saa isku walaaqaya insha Allah intaan weli shiidin marka asxaabay anigu saan uga helay kale waad uga heli doontaan insha Allah waa kana waa ii diyaarsamay aniga koobka ku shubanay insha Allah marka waxa waaye kale anigu aad baan uga helay ma sha Allah idinkuna waad ka heli doontaan
kuwa badan waa idiin soo samayn doonaa insha allah laakiin dhiirigelinta idinka iskale inay dhiirigelisaan inaad maxay tahay wax alla wixii aad jeceshiin iisoo gudbisaan anaa idiin soo gudbiyo aan habeenii maalin u heelanahay marka maxay tahay asxaabay waa ujeedaan hadda koobkan ku shubtay waan isku walaaqay waa kasaa dixiin buu isku noqday maasha allah lagama sheekayn karo walaahi waxba lagama qaban karo marka maxay tahay hadda waxaan ku darayaa olyoliif wax yar olyoliif aan ku darayaa waxaan ku darayaa in yar oo maxay tahay faasliin ah marka maxay tahay in yar caano ah marka idinku wixii natiijo ah hadda waxaan ku daray waa caano yar oo aan qasay marka asxaabay wixii natiijo ah waad arki doontaan insha allah marka maxay tahay waxaan rajaynayaa idinkuna inaad soo dhiirigelisaan inaad si fiican fiiyo igu fiirsataan marka maxay tahay waa kana hadda in yar olyoliif aan ku darsanaa inta yar olyoliif aan ku darsano qaadada haddana waxaan ku isku walaaqay waxaan ku daray haddana kii maxay tahay faasliin faasliin in yar faasliin aan ku daraya kor u soo qaad gacanta intaasaan isku daraya wax kale kuma darin waa qajaar waa bariis qajaarkii bariiska waa la karinaa mid gooni aan u kariyey maxay markii la kariyo waxaa lagu hoolaa saabuunta saabun dhoofta aad bay u fiican tahay hataa dhakhaatiirtu way kuusoo qorayaan marka oo sida elerjiga oo kale jirka markuu ku xanuunayo oo kale aad bay dhakhaatiirtu dadka usoo qoraan maxay ahayd saabun dhoof bariis qajaar waxaan ku daray intaa yar hadda ujeedaan caano yar oo qasan olyoliifa yar baan ku daray in yaroo faasliin aan ku daray maasha allah waxba lagama qaban karo de waad ujeedaan idinkaaba indhihiina macalin idin yahay marka asxaabey wixii alaha idinka idinka sugaa waa tasaa gacanteeda ku tijaabina insha allah markaad gacan jirka marisid wixii wasakh oo jirka ku jiray oo dhan horta wuu soo nuugmaya cabaar baad ku daynay markaad marisid waad ku yara qalajinay adiga muddo 20 daqiiqa camal inta qubayska diyaarsanaysid baad sugay marka qubays jirkaaga adigaaba u bogi doontid maanta dhan jirkaaga waa taabanay insha allah marka waxaan idinka codsanayaa softi waaye maxay tahay jirka dhan softi ku noqonayaa marka koleyba lagama sheekayn karo waxna lagama qaban karo idinka unbaa arki doontaan insha allah tijaabiya idin leeyahay isku maxay tahay isku dardarsada soomaaliya caajiska aan iska dayno waxyaabaha jirka u fiican kimikaalka aan iska dayno waxyaabaha oo u fiican jirka oo dabiiciga ah aan marsana waa ujeeda hadda gacantaysa u dhalaashay wixii wasakh ahaayoo dhan anuu ujeeda ka maydhantay waa ujeeda gacantaas ismarkaas madowda kana cadaatay marka asxaabay halkaasaan ku shubanayaa marka qofku wuxuu u isticmaali karaa markaad meel ku shubatid fridge hal bil camal hataa way ku ool karaa haddaad fridge haysana maxay tahay adi week way ku oolaysaa week waad isticmaali kartaa laakiin qofkii fridge haysto muddo bil ah intuu isticmaala uu dhigan karaa marka asxaabay intaasaan kusoo gabagabeeyey way ii soo dhammaatay videogii waxaan idinka codsanayaa like share comment subscribe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada asxaabay dhammaantiina aad iyo aad aan jecelnahay bye bye